madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Pretoria ee caasimadda dalka Koonfur Afrika. Madaxweynaha ayaa halkaas waxa uu kaga qayb galayaa caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkaas. safarka madaxweynaha oo dalka Koonfur Afrika uu ku tagayo ayaa ka hor inta aysan ka bixin garoonka Aadan Cabdulle Cusmaan waxaa faahfaahin ka bixinaya agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed. bismillaahir rahmaanir rahiim. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhow ka ambabaxay magaalada Muqdisho. madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ku sii jeedaan magaalada Pretoria ee dalka South Africa, halkaas oo maalinimada berri ah ay ka dhici doonto caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Koonfur Afrika mudane Cyril Ramaphosa. sidaan ognahay Soomaaliya waxay kaalin mug leh ka qaadatay la dagaalankii midowga kala sooc ee dalka South Africa. labada dalna waxay lahaayeen xiriir taariikhi oo soo jireen. waxaan rajaynaynaa ka qaybgalka caleemasaarkan iyo kulamada uu la qaadan doono madaxda dalkaasi inay noqoto mid sii dardargelisa xiriirka ka dhexeeya labada dal. madaxweynaha waxaa safarkan ku wehliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Ambassador Axmed Ciise Cawad iyo sidoo kale agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Nuur Deeriye Xirsi Fuursade. lama oga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya kolka uu tago dalka Koonfur Afrika inuu la kulmi doono jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaas ku dhaqan, iyadoo dadka Soomaaliyeed ay wada og yihiin Koonfur Afrika in ganacsatada Soomaaliyeed looga geysto dil iyo dhaawac. Cabdirashiid Sandheere, raadiyaha iyo telefishinka SBC, Muqdisho.